السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبريه أفكا سوماليغا كبرو شاشادا ويديسو قد بنجرتي روكتا برشادا أفكا غهوي وحانا مانتا عشرة دنو inoo aqoonayaan kuwan aan soo sheegi doono oo sawirada ku soo bandhigi doono waxaynu soo wadnay taxanihii habhigaadeedka afka Soomaaliga isku xirka ereyada iyo waliba xisaabaadka qaabka loogu dhawaaqo xarfaha xisaabta loo qaato iyo kuwa kale ee xisaafalada calaamadahooda hadda waxaynu qaadanaynaa maanta casharkeenu yahay waxa la dhaho ereyo isku macno ah ereyo isku macno ahi ma aha in la oranayo macnuhu waa ereyga hadana waa ereyga laakiin inay isku macno noqdaan hadana meelahay kala galayaan kala bedelnaadaan ayaa laga yaabaa inay isku meel galayaanna waa dhici kartaa marka waynu bilaabanaynaa ereyo isku macno ah erayo isku macno ah oo maxaynu soo qaadanaynaa aaf maxaa la macnaa aaf waxaynu oran karnaa macnahaan waxay wadaagaan horta ereyga la yiraahdo masiibo waxa kale oo la macno ah baaba ayaa la macno ah iyo kuwa kale oo iyana ay ka mid yihiin halaag ereygaas keligii wuxuu macna sameeyay masiibo baaba iyo halaag iyo waliba kuwa kale oo inaan hadda meesha ku soo qorin waxa kale oo aynu soo qaadanaynaa eebo oo ila macna tahay hibaasho waxa kale oo la macna ah erey kale oo asalkiisu ka yimi markii hore oo falaarta macnaha eebo waxa weeyaan ereyga kan wuxuu sameeyay laba macne oo kala nooc ah taasoo asalku uu yahay tan dambe ee falaarta marka waxa ka garanaysa gabaygi ahaa hadalkaadna tiri hebelow eeba nagu reebiyo macnaha go'asho nagu reeb hibasho go'asho hintario waxa soo dham isku macnay sameynayaan ee meelaha loo kala isticmaalayo iyo dadka kala isticmaalaya kala bedelan iyo gobolada Soomaaliya laga kala isticmaalo marka laakiin macnawiyan waxay noqonaysaa eebo waran ku taagan ayuu noqonayaa falaar ku taagan ayaa laga metelay hibashada ama go'asho ama hintario hadii la yiraahdo eebo oo toosana falaar bay noqonaysaa falaarta la isku gano oo waagi hore waxa qaansada la suuri jiray oo lagu sii dayn jiray neefka lagu togan jiray xabada loo isticmaal xabadahan loo isticmaal jiray ayaa la oran jiray waxaanu kala soo qaadanaynaa waxa la dhaho edeg
edeg edeg maxay noqonaysaa edeg waxay noqonaysaa edeg waxa loo isticmaalaa cambuujo cambuujo waxa kaloo la yiraahdaa qab qab waa meesha maqasha yar ee ariga lagu rido oo lagu xereeyo oo si loogu xafido mar waxa la yiraahdaa edeg edeg kuwa waaweyn baa loo isticmaalayaa cambuujana waxa loo isticmaalayaa kuwa xoogaa roon oo kuwa ka yar laakiin aan wali geeda badan baran ama ababin waa daaq baran abab baa la dhahaa markay daaq bartaan waa ababeen iyo ma ababin baa loo kala isticmaalaa marka la yiraahdo qabna waa kuwa habeenada dhashay oo meel qafacan ayaa iyaga lagu ridaa oo aan hawadu ka soo galayn hadii la doono taayir ayaa inta la dhexgeliyo oogada laga saaraa gobolada ama foostada afkeeda sare oo la gooyay kaasa la dhahaa marka intu waa isku macne laakiin xayawaanka loo kala isticmaalayo ayaa kala yara waaweyn macnawiyanna saasay sameynayaan ereyadaas oo waa macna inoo kordhay oo aynu baranayno maxaa soo haray nabar 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 waa cilad 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 ama astaan waxay marka noqonaysaa nabar qof ama shay meel noole kaga dhacay oo aan bogsan oo wali xanuunaysa ama hadheecaan ha lahaato ama yey lahaane waan jirko kale wali noqon oo bogsan ayaa waxa loo isticmaalaa nabar ciladna waa la yiraahdaayo waa ciladaysan tahay wixii waa xun yihiin ama waa bukaan ama waa xanuunaysa ama waa jiran tahay astaan baa ka muuqata nabara ayaa la oranaya marka astaantaas laakiin astaan marka la yiraahdo waa in nabar ama cilad lagu dara kaligeed isma taagi karto iyadana saasaynu qaadanaynaa waxaanu kala soo qaadanaynaa iftiin 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 muxuu la macno yahay iftiin macnihiisu waa ilays 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 baa iftiin la dhahaa waa layrkan oo kale ayaa waxa la yiraahdaa iftiin waxa uu muujinayo wax ku ifinaya iftiin la dhahaa waxaanu kala soo qaadanaynaa kan kale oo ah og 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 oo ah oo la mid ah ogo la mid ah ka habeen la mid tahay maadaama ay ka la mid tahay ka how isaga laftiisu wuxuu macnihiisu yahay marka qoraxdu soo baxayso iftiinka ay muujinayso oo kor u soo baxaya ayaa waxa la dhahaa ka ama og dabka la shido oo meel dheer ka muuqdana waxa loo yaqaan isagana ka ama og saasu wuxuu ku sameeyay marka magaca labadaba in loo isticmaalo isaga sidaas marka inoo muujinaysa insha Allah inuu magacu uu isleeyahay waxa xigo inuu soo qaadanaynaa olol 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 oo macnaheedu yahay belel 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 baynu isagana soo qaadanaynaa olol iyo belel labadu waa isku macne waa dabka marka la shido waxa ka soo baxa oo iftiinka ah oo ololaya nuuraya oo kacaya waxna gubaya waxna halaagi kara ayaa olol la dhahaa oo fida belelna waa la dhahaa marka isagana saasa loo isticmaalaya waxaanu kala soo qaadanaynaa xarafka kale oo ah uubo 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 oo ay la macno tahay uubo waxa la macno ah god 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 oo maxaa tahay god waa meel godan oo hulan oo ka hooseysa uuba la dhahaa ama uubna waa la yiraahdaa uub iyadoo aan ooda lagu darin ba waxa la dhahaa uub
uubana waa loo yaqaan marka waa god hoos u hulan oo waxa wixii ku dhaca la halis galayaan ama aan soo noqonayno saako dhibaatoonayaan marka waxa inoo socda wali casharkeena ereyada isku macno ah oo aynu rabno in aynu sida aynu uga faa'iidno hore u sii wadno kordhino inagoo raacayna sida xuruuftu isugu xigaan xarfaha afka Soomaaliga ama astaanta loo qaatay hadalka ayaanu taxane ka dhiganayna marka maxaynu bilaabaynaa misana baaq 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 waa ogeysiin ogeysiis ogeysiis waxa kaloo la mid ah baahin tebin iyo kuwa kaloo badan ayaa waxa la yiraahdaa baaq ogeysiis baahin tebin waa isku macne hal macne wada sameynayaan waxaynu soo qaadanaynaa oo kaleeto ereyga ah beeg 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 maxay tahay beeg waa cabir cabir ereyga beeg waa cabir in wax la beego iyo in wax la cabiro si loo miisaamo waxa la miiso ayaa loo isticmaalaa waliba oo aan ahayn wax la daraayo ayaa cabiraada iyo beegista intaba loo isticmaalaa miisaankana waa loo adeegsan karaa caadiga waxaynu soo qaadanaynaa oo kale ereyga ah bed 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 oo macnaheedu yahay mug 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 waa iyo bed waa isku macne marka bed dhulkan iyadoo la isku dhuftay gidaarkan balciisa iyo dhererka ayaa la isku dhufanaya marka la isku dhufto xisaabta ka soo baxda haduu 3 mitir iyo 4 mitir kala ahaa marka la isku dhufto labadooda oo isku dhufasho loo isticmaalo 12 ayaa ka soo baxaya mitir 12 mitir maxay noqdeen maxaa loo isticmaalay 12 mitir oo laba jibaaran way waa mitir cube waxa loo isticmaalo laba jibaarka laba jibaarka waa laba miiskan labadiisa dhinac oo la isku dhuftay dhexda inta ku jirta ayaa helaysa intaasu maxay tahay mug waana laba jibaarmaya وحساب لبا جبارن أي نقونيا مثال 4 متر oo lagu dhuftay 3 mitir wuxuu la mid yahay 12 mitir oo laba jibaaran ayuu noqday sida ayaa mugi ama bedkii shayga ama bogcada ama meesha ama waxa la raadinayo lagu helay bedkaas la yiraahdo waa erey bixin loo isticmaalo afka Soomaaliga xagga xisaabta ayaa loo isticmaalaa waxaynu kala soo qaadanaynaa itaal xumo oo la macna ah tabardaro tabardaro ayaa la macnata xarafka ku xiga oo aynu soo qaadanayno oo ah bilbil xariiqdan aanu dhaxaysiiyay labada erey maadaama ay isku soo qormeen waa inay muuqataa laba la isu keenay oo isku soo ugu dhawaaqmaya inay yihiin marka maxay noqonaysaa bilbil waxay la macno tahay firdhi rushay rusho rushay iyo kuwa badan oo kale marka waa isku macne intaas waxaanu kala soo qaadanaynaa tag oo macnaheedu ah joog
joog waxa taag iyo jooj ama joog waa isku macne joog shayga joogiisa iyo taagiisa isku macne noqonaya hal macne wada sameynaya oo iyaguna waa isku macne labadaas waxaynu kala soo qaadanaynaa xarafka kale ama ereyga kale oo ah tag tag oo macnaheedu yahay soco 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 ayay la macno tahay soco dhaqaaq waxa soo dhami isku macne noqonaya isku macne tag soco dhaqaaq waa isku macne iyo kuwa kale waxaynu qaadanaynaa xarafka ku xiga oo ah tabi tabi oo macnaheedu yahay sheeg ama weri weri ama gudbi intuba waa isku macne tabi sheeg weri gudbi waa isku hal macne sameynaya warka tabi warka sheeg warka gudbi waxa soo dhami hal macne noqonayaan waxaanu soo qaadanaynaa kan ku xiga oo ah toobiya toobiya maxay tahay toosan toosan wadooyinka loo isticmaalaa waliba dariiqada la maro oo ah wada toosan ama toobiyaha raac waa wada toosan maaha wada oo dhan waa inay dirita tahay oo toosan tahay oo dariiq ilaa iyo meesha ugu dambaysa ishaadu qabanayso waa noqdaa kaasa la dhahaa toobiye eriguna waa toosan laftiisu laakiin waa wadooyinka loo isticmaalaa meesha galaysa oo wadooyinka marka toobiye la yiraahdo waxaynu kala soo qaadanaynaa kan ku xiga oo ah tog tog wuxuu la macno yahay waadi biyo mareen iyo wixii la mid marka waa meelaha biyuhu maraan oo ay geeyaan meel fog waana dhul godan oo mar walbaba foorora oo hoos u godan biyuhuna raacaan ayaa la dhahaa togaga waaweyn sida webigo kaleeto qaab tog ayuu u samaysan yahay waana tog biyo mareena oo biyuhu aanay go'in marka la yiraahdo webi laakiin togagu ka mid yahay waxaanu soo qaadanaynaa oo kaleeto tuujin tuujin oo ah riixid tuujin iyo riixid waa isku mid shayga tuuji iyo riix waa isku macne laakiin qaabka wuxuu kala bedelmayaa riixis haday noqoto waxay noqonaysaa wax la durkinayo kale tuujinna waxay noqonaysaa wax dusha farta laga saaray ama gacanta laga saaray oo hoos loo riixay ya marka labadaasba waa yeelanaysaa marka iyadana macnaheedu waa sida waxaynu kala soo qaadanaynaa kan ah xarafka kale oo ah tuduc tuduc macnihiisu muxuu yahay tuduc waxa la macno ah meeris meeris
haddaba labadan erey waxna waa ku iskaga mid waxna waa ku kala duwan yihiin ereyga kan macna kalena waa loo isticmaalayo tuduc hadaynu niraahno waxaynu kala u isticmaali karnaa idaha marka lugaha inta la qabto jeenyaha lagu socodsiiyo oo labada lugood kor loo qaado waa la tudcayaa baa la yiraahdaa daduucna waa la dhahaa labada magacba waa loo isticmaalaa waa daduuc daduuc iyadana waa la yiraahdaa meeris laftiisu wuxuu noqonayaa marka meeris la yiraahdo meeris intaasoo tuduc ama meeris na waa loo isticmaalaa gabayga loo isticmaalaa qoraalka loo isticmaalaa wax walba waxyaabo badan toliinka shayga la tolayo oo harubada marka la tolayo iyadana waa loo isticmaalaa meeris intaasoo meeris baa la mariyay intaasaa la soo rogayo meeris haddii la marinayo dadku ay quraanka markay subcinayaan ama wax la siinayo oo dhowr jeer lagu socliyo laba jeer la soo meeriyay laba jeer la soo mariyay way marka meeris waa wareejin bay noqonaysaa ereyga macnihiisa dhabta ahi wareejin ayuu noqonayaa waxa kale oo aynu qaadanaynaa xarafka kale oo ah marka laga yimaado tuduca jaad waxa loo isticmaalaa nooc intaasoo jaad iyo intaasoo nooc waxaana kaloo jaad loo isticmaali karaa oo isagana uu la macno noqon karaa qaad oo ah kan la cuno oo dunida qayb wax badan oo kamid laga mamnuucay oo aan saa looga isticmaalin ayaa waxa la yiraahdaa qaad waxa kale oo la yiraahdaa ereyga qaad marka keligii la isticmaalo isagana waxa la isticmaalaa oo macna kale uu sameeyaa inuu noqdo qaadku kor waxa qaad minis waa anigoo la yiraahdo soo qaad masaxada sabuurada qaad masaxada buuga qaad saasna waa loo isticmaalaa labada macnaba qaad way sameeysaa jaadna labada macnaba wuu sameeyaa sidaas marka ay ku kala duwan yihiin oo isugu mid yihiin ereyga kale oo aan soo qaadanayno wuxuu noqonayaa jab waa qayb weey miiska qaybtii iyo jabkii labada wala rootiga jabisi iyo qaybisi labada waa loo isticmaali karaa waxa kale oo la isticmaali karaa oo iyadana aynu soo qaadanaynaa oo erey ah isna jeel laba macno uu sameeyaa marka jeel la yiraahdo laba macno uu sameeyaa mid waa xabsi weeye mid xabsi kan jeelka kalena waa xooluhu markay daranta ama milixda waayaan ayaa waxa la yiraahdaa way jeelan yihiin baahi baa u haysa dhanaan bay rabaan wax dhanaan ya jeel waa sida waa xoolaha oo daran u baahday ama wax dhanaan oo milixa ayaa waxa la yiraahdaa jeel labada macnaba ereygu wuu sameeyaa uu jeelan yahay baa la oranayaa geelu wuu jeelan yahay arigu wuu jeelan yahay loodu way jeelan tahay xayawaankaas oo dhamisaasa loo isticmaalaa marka casharkeena caawa ama maantaba galabtaba halka ayaynu ku soo gabagabaynaynaa إن شاء الله أنت نكجاري إنه عشرة كوحجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.